السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله فضلك إلهي سبحانه وتعالى إن حريستي سوحا كمدا ومدي سونا حريستانيو إنه إلهي سبحانه وتعالى فرأي إني قبصدان عمل يرى فضود إسلام مركانا أي أوال مرينا أقاتان أما أي هلان أجرى مركا آد أقاريا ومركا آد وين هذا بقى أعماشاني وإلهي سبحانه ونفرأي وحا كمدا إن نقول ضد مجاهدين هذا بقى عاوة ciwaankeena wuxuu noqonayaa sideen ku noqonaynaa ama sideen ku helaynaa ajirka qofka mujaahidka oo kale sidee darajadii heerkii dadka mujaahidiinta ay gaareen oo kale u gaaraynaa sidee ilaahay subxaanahu watacaala uu ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu qoraa inaan noqono dad mujaahidiina haddaba sideedan camal mid ka mid a haddii aad samaysa waxaad noqonaysaa qof mujaahid oo kale ayaad markaa noqonaysaa ama ajirka dadka mujaahidiinta ilaahay jidkiisa u dagaalamay oo kale ayaad helaysaa camal koowaad wuxuu yahay aljihaadu bilmaal inaad xoolahaaga ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo jidkiisa aad ku caawiso oo aad ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa aad ku bixiso mar kasta iyo xilli kasta mar kastoo lagaaga baahdo inaad diinta ilaahay iyo jidka ilaahay caawimaadiisa lagu weydiiyo jidka ilaahay loo baahdo in loo gargaaro inaad noqoto qof xoolihiisa ugu gargaaraya laba aljihaadu billisaan diinta ilaahay subxaanahu watacaala mar walba waxay u baahan tahay gargaar inaad markaa noqoto qof carabkiisa ku dagaalama ee xaqa u dagaalama inaad xaqa wax allaale waxaad aragto runta ka sheegto oo aad xaqa u dagaalanto waa waajib diini ah haddaba arrintaa waxaa lagu helayaa haddaad diinta iyo jidka ilaahay subxaanahu watacaala iyo xaqa aad u dagaalanto waxaad ku helaysaa darajo oo aad iyo aad u saraysa waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu faray inuu qur-aanka gaalada kula dagaalamo ilaa intuu markaa ka adkaanayo haddaba ilahay wuxuu leey wajaahidhum bihi jihaadan kabiira haddaba camalka saddexaad ee ka mid a acmaasha lagu heli karo ajirka qofka mujaahidka oo kale waxa weeye assaaci cala alarmalati walmasaakiin qofka had iyo jeer u socda inuu masaakiinta iyo dumarka nimankooda dhintay caawiya haddaba qofkaasi caawinta aad caawinayso dumarka nimankooda dhintay ama nimankooda geeriyooday ama caawimaada dadka masaakiinta aad caawinayso ama dumarka haddii aad guursato oo aad caawiso baahidoodii iyo wax alala waxay rabeen aad markaa daboosho waxaad la mid noqonaysaa qof mujaahid oo kale waxaad helaysaa ajirka qofka mujaahidka oo kale haddaba camalka afraad ee ka mid ah acmaasha lagu kasban karo ajirka qofka mujaahidka waxa weye birulwaalideyn qofka inuu labadiisa waalid baari u noqdo nabigana sala allahu calayhi wasalam arrintaa waxaa caddaynaysa inuu nabiga nin u yimid islamarkaana uu ka dalbaday jihaad nabiga wuxuu ku yidhi haddaba labadaadi waalid ma nool yihiin haa buu yidhi ninkii haddaba wuxuu yidhi nabiga uu faray inuu qofkii uu laabto oo labadiisa waalid uu ku jihaado haddaba labadaada waalid haddaad ku dadaasho oo raali ahaanshooda aad ku jihaado oo aad ku dadaasho waxaad la mid noqonaysaa qof mujaahid oo kale haddaba camalka afraad ee ka mid ah acmaasha lagu kasban karo acmaasha lagu helayo ajirka qofka mujaahidka oo kale waxay noqonaysaa alcamal الصaalixu maca alcilmi camalka shanaad waxa weeye alcamal الصaalixu fi cashri dilxija inaad camal wanaagsan shaqaysato tobanka maalmood u horeeya bisha dilxija wuxuu nooci doonaba ama camalka noocu doonaba ha noqday ama ha noqdo salaad ama ha noqdo soon ama ha noqdo zako ama ha noqdo islaax bayn annaas dadka dhexdooda arrimahooda oo la heshiisiiyo inaad soonto inaad salaado inaad dadka haddaba gaarsiiso ama inaad dadka waxbarto inaad dadka adig wax un tarto oo ayaga anfacaya ayaa waxaad ku kasbanaysaa camalkee wey camalkaa waxaad qabsanaysaa camalka aad qabsanayso maalinta tobanka maalmood ee u horeeya bisha dilxija waxaad ku heli kartaa ajirka qofka mujaahidka oo kale haddaba camalka lixaad ee ka mid ah acmaasha lagu helayo ajirka qofka mujaahidka waxa weeye alxaj xajka haddaba qofkii taga wuxuu la mid yahay qof ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa u dagaalamay ama qof mujaahid oo kale ayuu la mid noqonaya nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay wadada u degdega jihaad aan qodaxna lahayn jihaad aan dhaawac lahayn dhibna lahayn midna lahayn u degdega jihaadkaasi markay asxaabtu weydiiyeen wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam alxaj haddaba xajka weeyaan haddaba jihaadkaasi nabiga wuxuu noo sheegay jihaad aan dhiig xoolo dhaawac qodax ay kugu mudin waxna ayna kugu gaarin haddaad rabtid waa haddaba jihaad kaasi wuxuu noqonayaa xajka haddaba haddaad xajka jegto ama xajka haddaad tagto waxaad la mid noqonaysaa ama aad helaysaa ajirka qofka mujaahidka oo kale haddaba camalka u dambeeya ka mid ah camalka toddobaad ee ka mid ah
أعماشا lagu heli karo qofka ajirka qofka mujaahidka waxa weeye alcaamil cala sadaqa qofka u adeegaya sadaqada qofka u adeegaya sadaqa aruurinta qofka u adeegaya dadka masaakiinta ee sadaqada u ururinaya qofkaasi wuxuu la mid yahay qof markaa jihaadtamay nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay alcaamilu cala sadaqati bilxaqi kalgaazi fi sabiilillah xataa yarjica ilaa ahlihi qofka sadaqada u adeegaya oo si dhab ah oo daacada oo xaq ilaalin ah u adeegaya qofkaasi wuxuu la mid yahay qof markaa jihaaday ilaa intuu gurigiisa kusoo laabanayo haddaba camalka sideedaad ee ka mid ah acmaasha uu qofka ku heli karo ajirka qofka mujaahidka oo kale waxa weeye ziyaaratu المسجد النبوي للعلم قفك إنه مسجد كالنبي أو بغضة سوى علمي دونها النبي صلى الله عليه وسلم وحليه هاي من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه قفك مسجد كي قوي ماذا إلا خير ومركا برناه أما ودتك برايا موياني قف كاسي وحلمي هاي قف جهادي أما جد كالغازي في سبيل الله فهو أما النبي يقول حليه فهو بمنزلة المجاهد قف كاسي درجة دتك المجاهدين تأكله أي مركا جارية هذا qofkii arintaa wax ka duwanaa intaa waxaan ahayn u yimaadana qofkaasi qof caadi ah oo meesha iska yimid ayuu markaa lamid yahay waxaa jira markaa ma helayo wey haddaba sideedan camal mid kamid haddii aad shaqaysato waxaad la mid noqonaysaa qof ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa u dagaalamay ee jidkiisa u adeegay ama jidkiisa u dhintay ayaad la mid noqonaysaa sideeda camal mid kamid a qabso ajirkaasna qaado ajirkaa weynna qaado sideeda camal mid kamid a markaa ku mintid oo ku dheg qof sameeyana noqo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siinayaa darajadii qofka mujaahidka ama wuxuu ku gaarsiinayaa darajada mujaahidiinta ama wuxuu ku siinayaa ajirka qofka mujaahidka oo kale haddaba walaal subscribe garee share garee la wadaag acmaashan aan kuu sheegayo intaad dhegaysatid ha iska kay dhaafine mid samaynaya noqo mid kamid a samee ajirkaad uu kuu sugnaanaya waana heli doontaa biidni illahi tacaala wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.